hay-adda arrimaha isboortiga kala duwan ee caasimadda waddanka Finland oo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ugu tala gashay isboorti kala duwan kadib markii cilmi baaris lagu ogaaday in xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin ay ka hooseeyaan tan dalkan ay u soo hajireen waxaana si wadajir ah u soo qabanqaabiyey magaalada Helsinki masaajidka Al-Huda oo ah masaajidka ugu weyn dalkan Finland ee ay Soomaalidu gacanta ku hayaan iyo magaalada Fanta iyadoona ay goobta ka hadleen culimada masaajidka dhaqaatiir iyo mas'uuliyiinta magaalada Helsinki gaar ahaan isboortiga waxaana lagu hadlayay luqadaha wadamada Finland iyo Soomaali waxaana dhamaantood ay ka wada hadleen ahmiyadda uu leeyahay jimicsiga iyo waliba sida ay muhiimadda u siisay diinteena islaamka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Programkan la yiraahdo isboortiga iyo raashinka caafimaadka leh wuxuu ka dhashay baaritaan la sameeyay 2012 ay wasaaradda caafimaadka ee waddankan samaysay kaasoo soo saaray lagu sameeyay dad ajnabi ah Soomaali Ruush iyo Kurdi marka programkaasi wuxuu soo saaray Soomaalida inay awoodda murqaheeda iyo miisaanka hilibka saaran oo aad u badan yahay sidaas darteed hadda waa tallaabadii ugu horeysay in la wargeliyo oo dhibaatadaas loo sheego marka programkan waxa lagu qabanayay masaajidka Basila maanta oo ah 13 bishii 3/2015 programkaas marka wuxuu ka hadli doonaa kulli qaybo badan buu leeyahay qaybta soo socota oo bisha afraad ayadana waxay noqon doontaa qaybta raashinka marka programkaasi kulli laga faa'iideysto programkaasna waa noo furan yahay billahi tawfiiq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام أسكن كاونيوس بلا سين التسكتا كوكو إلمان إسلام أسكنتو أن كوكو نايس والتاين أسكنتو يتودستين أن سئتا سأن هوم يونوت إهمسن هنكست يبوسست تربت إسلام أن أنتنوت سيلول سن هنجل لست تربت يا والله صد تين من لسساب الطايسي أنن سما الله سأي أولي لا من لونت إهمسن كهوا يا ملة تبالله كهو سايسي ويما يتربوته إسلام أن يستنوت يا أباستنوت ملة كينو إلا يا ذلين إلا إهمنن صابو الطايسي رومي اللسن يا هنجل لسن كوكونايس بالطايسن تربودن هوفين فوينين كستبودن يا أنن أن أولمسا كولويسا بريمتيتو يسهن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سنوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ظهر أسكفين أن ركم بالله اللي كإن هيك أسكفين متهيس مولمس أن هذا تما برمتية كرستا هوين فوين يتربودن مركتستا يبرستا إسلامسا بروفيت محمد أن موس تويسسا كرتو مكسسا صننت صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حق سنن روم اللسي أن أويكيوتا سن وكهتان تركويتين ستا إتا إهمسن أن بدأتا هذا هو التا أماستا كهوستان يسن لايمن لومنن أي أولي صليتو إسلامسا سلا كهو أن ميل أنتو لهيا يستا أولي مبستو سيومال الله تاسا كورستو أرهيلون يليكن المركتوس يا تركيوس إسلاميسا سلسة أونلاين مكان مارتو هريوت التفاكسي لبي إلمان يسي أون أسا أسكنتوا قرآن السميوس كورستان أرهيلون تركيوس الله صنع قرآن السا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ضرستك هيت فستان نين باليون فوي ما يظهبوتا يا رب سوستايدون هلنتا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم
seliti tata yaita, että sana voima tarkoittaa tässä yhteydessä erilaisissa urheilullisissa heitoissa tarvittava vahvuutta. Esimerkiksi keihäsheito, jousiammunta ja niin edelleen. Sillä näissä lajeissa vaaditaan voimaa, tarkkuutta ja vahvuutta. Urheilun merkitys on korostettu islamissa naisille, lapsille ja miehille. Hän profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilpailutti ja kehoitti lapsia leikkimään, sillä leikkiminen on lapsille liikuntaa. Hän oli lasten leikeissä esimerkillinen ohjaaja ja osallistui itse heidän liikunnan ohjaamiseen. Lapsia hän kannusti juoksemaan kilpaa ja hän itse olisi maaliviiva. Se, joka ensimmäiseksi ehtii, saisi suukon profeetalta sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sanoi myös: "Allimu awladakum as-sibahata wal-rimaya wa-rukub al-khayl." Opettakaa lapsillenne uimasta, keihäsheitoa ja ratsastusta. Naisia hän kannusti liikkumaan esimerkiksi kilpailuttamalla vaimoja keskenään tai hän kilpailemalla vaimojaan vastaan. Tästä saamme laaja kuva siitä, miten profeetta sallallahu alaihi wasallam kannusti ja kehotti koko yhteisöä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään fyysisesti, henkisesti, henkilöisesti ja sosiaalisesti ja moraalisesti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kiitos. Ja ohjelma jatkuu. Meillä on täällä tänään lääkäri Mulki Mölsä, joka kertoo maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta liikunnan näkökulmasta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan rabaa oo maanta aniga daqiiqadaha la siiyay Helsinki bunkii qoladan oo liikuntada aniga ila soo hadashay waxay dhaheen waxyaabihii ka soo baxay cilmi baaristii la suubiyay oo aad dhammaantiin ka warqabtaan intiina badan. cilmi baaristaas wixii ka soo baxay ayay ka mid tahay faa'iidooyinka cilmi baarista ka soo baxay ayay ka mid tahay wax maanta laydin qabanayo oo laydin kula hadlaayo oo ah in laydin sharxo diiniyan iyo maadiyanba wixii markan oo liikuntada ama dhaqdhaqaaqa faa'iidada uu jirka u leeyahay in laydin sheego oo barnaamijka laydin soo diyaariyo. Helsinki kaliya ma waxaan u maleynaa Vantaana waxaa jiro masaajidka Vantaana waa laga hadli doonaa meel saddexaad oo Esbo aan waajibtaa hadda ma xasuusta meel ay nuur marka okay waxa aniga marka ku koobanahay oo maanta leega codsaday kaliya inaan ka hadlo cilmi baaristaas wixii ka soo baxay caafimaad ahaan waliba gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed marka idinku ma daahinaayo qofka waxa la rabaa marka cilmi baaris lagala hadlaayo waxa loo baahan yahay cilmi baarista habkii loo suubiyay cidii suubisay iyo wixii oo dhan in loo sharxo laakiin waqti badan aniga intaas idinkaga luminaayo maadaama aan rabo salaada in laga gaaro qofkii u baahan laakiin gadaalan uga sharxi doona qofkii u baahan waxaa jirtay 3,000 oo qof oo wadankan degan oo u badan Kurdi iyo Soomaali iyo Ruush ayaa cilmi baaristaas ay qusaysay waxaana lagu suubiyay 6 magaalo oo kamid ah wadankan Finland oo ay tahay Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Vaasa intaas oo magaalo lagu suubiyay dadka laga baarayna 18 jir ilaa 64 jir ay ahaayeen waxaan idin sababta loo baaray ajnabiga maxay ahayd waxay ahayd runtii caafimaadka ajnabiga oo Finland waxba laga ma ogeyn markii ugu horeyso cilmi baaristaas la suubiyay ahayd waana waxaan u maleynaa Scandinavia oo dhan hadda hadii la fiiriyo Nordic countries-ka wadankii ugu horeeyay oo cilmi baaris ajaanib lagu suubiyay ahayd Soomaalidana runtii waxay nasiib u yeelatay inay hesho cilmi baaristaas waxaan ka xumahay run ahaantii sidii la rabay Soomaalida ugama soo qayb galin maadaama Ruushka ay ka qaybgalkooda ay ahaayeen wax ka badan 70% Soomaalida wax konton ka yaraatimid marka haddii aadan adigu dhibkaaga sheeganin adigana waxa dhibka qabtid lagu ma ogaanayo Soomaa
waxaan idinka rajaynayaa sanadada dambe ilaahay hadduuna gaarsiiyo inaan cilmi baaristaas weyn hadday imaato oo caafimaadka inaad ka qayb qaadataan waa idiin soo koobayaa cilmi baarista iyo wixii ka soo baxay waxaa idinkuma daahinaayo markay dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dadka la baaray waxay u badnaayeen dad waqti badan jooga Finland ilaa 10 sano dad cusub ma aysan ahayn dadkii la baaray waxay u badnaayeen muxuu ahaayay dad ku yimid wiilasha ayaa soo hormaray gabdhaha ayaa gadaal ka yimid oo ama guuray ku imaadeen ama nooc kale ku imaadeen gabdhaha waa yaraayeen markii hore waxaa kaloo cilmi baaristaas ka soo baxday runtii caafimaadka waxa caafimaadka ku saabsan Soomaalida badanaa dhiikar badan ma qabto dadkii la baaray oo gabdhaha inta la baaray gabdhahan ka hadlaaya boqolkiiba waxaan u malaynayaa wax oo 3 iyo 13 waxay ahayn ma aqaana xasuusta hadda inay qabeen dhiikarka laakiin cholesterolna ma lahayn dhibaatooyinka ay Soomaalida qabaan oo runtii dhaqdhaqaaqooda u dhimayso qofka markuu jimicsanayo waa in qof tabar leh uu ahaada Soomaalida kulligood anamiyay wada qabeen inta ugu badan cilmi baarista la suubiyo anamiyada way wada qabeen dhiig yaraanta la dhahaa anamiyada talabaadna vitamin D ga ku yaraa vitamin D ga hadduu kugu yar yahayna run ahaantii waxa waaye wax badan uu qofka qaban kara male murqa xanuun iyo caajis iyo dhib badan ay leedahay vitamin D wuxuu ka dhigan yahay qorrax la'aanta qofka uu qorraxda u sahelaynin waa laga yaabaa daaweyn inaan qaadano laakiin waxa laga yaabaa levelka vitamin D ga iyo daawada aan qaadana inay islahayn oo u baahan tahay qof walba in gaarkiisa inta loo fiiriyo daawada asaga ku haboon qofka caadiga wadankan degan waxa laga yaabaa hal kiniini inuu habeenkii qaato ama maalinkii qaato oo vitamin D laakiin dadka qaar waxay u baahan yihiin in intaas ka badan waxaanan ogahay aan qorshaheeda aan ku jiray aniga iyo habeynteeda cilmi baaris kale oo Soomaalida kaliya lagu koobay oo vitamin D ga soo ma xasuusnidin yaa ku jira gacanta taaga yaa laga qaaday vitamin D gaas okay waa yartiin aada u yartiin wallahi marka waa nasiib daro inaad kaasna aad dhaaftaan marka kaas waxa loo leesin lahaa daawooyin la leesin lahaa hadii aad ku jirtaan dhibaatooyinka jira waxa waaye marka on soo koobay maadaama aan inta soo saari karin tabar darro lagu arkay sida loo baaray waxay ahayd bir waxa jirta gacanta qofka ku qaba la dhahay ilaa 60 second xoog u qabo xooga qofka la baarayo nimanka iyo naagaha Soomaaliyeed labadoodaba xooga gacmaha aad ay ugu liiteen marka loo fiiriyo nimanka Ruushka gabdhaha Turkida iyo nimanka Turkida marka loo fiiriyo xooga gacanta aad ay u liiteen laakiin markii la dhaho jaraanjaro koridda dhibka waxa qabay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed dhibkaasna waxa u keenaa iyaga waxay ahaayeen waxyaabihii la soo ogaaday waxa ka mid ahaa miisaankooda aad u badnaa cayilkooda aad u badnaa wiilasha Soomaaliyeed oo cilmi baaristaas ku jirayna iyaga waxay ahaayeen wiilal wada caata ah waxay sporti ay ciyaaraan wax dhiba oo kale ay iyaga qabeen ma jirto laakiin gabdhaha Soomaaliyeed wallahi waa dhiban yihiin cayilka ka sokow ma anamiyay qabaan vitamin la'aan ay qabaan liikunta ma aadaan hadii la xisaabo inta liikunta ku jirta intiinaan hadda aada liikunta yaa ku jirta faraha fiir 2 3 4 ma badna marka dhibaatadiina way ay badan tahay waxaan soo koobay anoo cilmi baaris soo koobay waxa idin leeyahay waxa waaye hadii aan la dhaqaaqin oo liikuntada aan la dhaqaaqin waxa imaanaysa cudurrada loo yaqaan sokorta dhiigkarka iyo lafa burburkana vitamin D laantaas waxa dhowta ka imaanaya markii wadankan la sii joogo inta hadda aan joogno in ka badan marka qof aan tabar bahaynin maxaa ilmahaynaysa gurigina 6 sano ku joogto qofkii ugu yar Soomaalida waa 4 Soomaal marka saa adiga ilmihii iyo gurigii iyo odagii iyo ku haynaysa adiga marka burburtidna hadda muxuu ahay replacement odagaagu uu kugu suubina markay ma shaqaysan kartid Soomaal marka naftaada la rabaa inaad ka naxdid oo aad sports hadda aad gashaan waa aragteen odayaasha Soomaalida dhamaantood kentayaasha yaalka ballada lagu cayaaro oo banooniga lagu cayaaro oo Finland iyaga u camiran tahay Soomaaliya runta hadaan sheegno laakiin gabdhihii meelna uma suubsana marka dhibaatada keenaysa in meelna aysan jirin dabaash waa nagu dhib oo meelo yar yar aan loo suubiyo ma aadi karno muxuu ahaay sport kalena ma gali karno maxaa yeelay nimanka iyo naagaha isku dhex jiro
dhibaatooyin badanaa jiro oo loo baahan yahay qofka muslimka ah in consideration loo siiyo ama loo fiiriyo markuu rabo inuu sport suubiyo marka aniga waxaan idin rajaynayaa run ahaantii inaad markino caafimaad ahaan eedinaan ku koobnaanin waxaan filayaa 2 sano ka hore ahayd markii masaajidkan aan caafimaadka ka wada hadlaynay Soomaaliya inteen qaar idinka mid ah jooga markaas 2 sano ka hor marka waxa fiican run ahaantii informationka caafimaadka inaa idinka raadsataan ma aha in la idin raadiyo turjubaanaan qabnaa inaad tiraahdaan af Soomaali hana loo kugu turjumo wixii information hadda waxa meeshaas yaalo dhan wax yar af Soomaali ku turjuman xaqa u leedahay marka in af Soomaali la idin kugu turjumo Soomaalida halkan joogto ilaa 15,000 iyo 800 ku dhowda waa 16,000 u sii dhownaay marka xaqaan u leenahay dhibaatooyinka jira runtii faa'iidooyinka oo cilmi baaristaas ay keentay waxyaabaha fiican oo ajnabiga lagu arkay ama dadka soo galootiga lagu arkay waxa kamid ah ayagu waxay isku haystaan inay caafimaad qabaan waxay iyaga aaminsan yihiin inay noloshooda nolol fiican ay tahay waxayna aaminsan yihiin markino in inta ay sii joogaan Finland ay wadanka la sii qabsanayaan waa markii la wareystay ayaga laakiin waxyaabaha walwalka keenay oo cilmi baarista ka soo baxay waxa jiray cudurrada madaxa oo badan maskaxda ku dhaca ama dimirka ku dhaca oo badan ayaa jiray ma aha Soomaalida kaliya ma ajaanibta kale ka hadlaaya waxa jiray dhibaatooyinka cunsuriyada oo badnayd ayaa jiray oo ka soo baxay cilmi baaristaas waxa kale ka soo baxay in physical activity ama functional capacity waxa loo yaqaano dhaqdhaqaaqa iyo xooga qofka uu aad u liitay waliba gabdhaha Soomaaliyada ugu liitay groupkii la baaro dhan niman iyo naago ajaanibta kale oo dhan Soomaalida ugu liidatay cayilkana Soomaalida ugu liidatay waana mahadsantiin aniga maanta intaasaan ku soo koobayaa mahadsanidin No niin, sitten jatketaan ohjelmaa ja liikunnan vaikutus terveyteen ja siitä kertoo lääkäri Outi Seppälä. Kiitos, että on saanut tänne tulla teille kertomaan. Varmaan aika monet ymmärtää suomeakin. Kuinka moni ymmärtää suomea? Melkein kaikki. Hyvä. Mä en ymmärtänyt mitään, mitä Mulki kertoi. Et mä katsoin vaan tuosta ruudulta noita tutkimustuloksia. Ja ymmärsin niistä sen, että tässä tutkimuksessa tuli esille, että nämä maahanmuuttajat harrasti vähemmän liikuntaa, erityisesti kurditaustaiset ihmiset ja sitten somalitaustaiset ihmiset oli ongelmana ja erityisesti naisilla. Ja ymmärsin sen, että ongelmina oli myös tämä, että jos ei harrasta liikuntaa, niin helposti paino nousee ja tulee sitten ylipainoon liittyviä sairauksia. Ja sitten helposti tulee myös tuki- ja liikuntaelinvaivoja, jos paino nousee, tulee selkäkipuja ja lonkkakipuja ja polvikipuja. Pitäisikö kysyä, että tarviiko tulkata? Joo. Haluatteko, että tulkki tulkkaa vai oletteko ymmärtänyt mitä mä... Inte paljon mä fahmisan. Hammarina on fahmisan sama. Takana on Yritetään nyt kosteella. Yritetään ihan vähän. Jos muut vähän niin sitten minä sanon sen. Okei, hyvä. Haluatko sä tästä sanoa mitä mä äsken? هذا إنك واحد بدل ما يشيل الموضوع ما يجري وهالشيء تكليه موضوع ملكي كهذا الشيء أنت إيه كفهمت رنتي سسحين هو فهمت أنت ملكي كهذا شيء سوقت. Ja sitten toinen ongelma oli se D-vitamiinin puute, mikä tuli esille tässä tutkimuksessa. Dhibaatada labaad oo baaritaankan ka soo baxay waxay ahayd D-vitamiinka inuu dadka aad u weeriyo. Nyt kun Suomessa saa paljon vähemmän aurinkoa kuin Somaliassa ja sitten naiset käyttää hyvin peittäviä vaatteita, niin pieni osa vaan ihosta on näkyvillä ja silloin se auringonvalon vaikutuksesta syntyvä D-vitamiini jää liian matalaksi täällä pohjoisessa. Waxay tiri maadaama wadankan qoraxda ay aad ugu yartahay markii loo barbardhigo Soomaaliya dumarkana inta badan jirkooda uu daboolan yahay saameyntii qoraxda ay jirka ku yeelan lahayd in yar bay noqonaysaa marka loo fiiriyo haddii wadankeeda ay joogi lahayd taasaa keenaysa in vitamiin D markuu jirka ku yaraado. Joo. Ja sen takia, koska auringosta ei saada sitä D-vitamiinia tarpeeksi, niin pitäisi sitä ottaa sitten purkista
eli ostaa apteekista. maadaama marka vitamin D la-aan ay jirto qorraxdii laga heli lahaana ay jirin waxaa markaas sax noqonaysa oo qofka laga rabaa in uu ka soo gato farmasiga kiniinigii vitamin D-ga ahaa. Joo, ja sopiva määrä on se 10-20 mikrogrammaa, kun niissä on eri vahvuuksia niissä tableteissa, kun ostaa apteekista. Niin vähintään 10 mikrogrammaa, mutta 20-50 se on ihan hyvä määrä. Kiniiniga marka wuxuu leeyahay cabir u gaar leeyahay kiniiniga marka qofka uu qaadanayo 10 milligram ilaa 25 ilaa 50. 10 waa kan ugu yar laakiin ilaa 50 ayaa fiican bay tiri marka soo gadanaysid burkiga ama daasada yar uu ku jira ayuu ku taalaa. Se D-vitamiinin puute aiheuttaa kipuja, nivelkipuja ja luukipuja ja sitten luuston haurastumista. Macnaha vitamin D-ga hadduu jirka ku yaraadana xanuuno badan baa imanaya oo ka mid ah lafihii oo burbur ku dhaca waxaa dhici meelaha kala goysida jirka oo dhan ayaa qofkii xanuunaya dhibaatooyinkaas oo dhan baa waxaa keena vitamin D laanta. Ja jos luut haurastuu, tulee helposti murtumia, jos kaatuu. Markii lafuhu ay jilcaan waxaa imaanaya qofka hadduu dhaco inuu hore ka jabo. Mutta parasta kaatumisen ehkäisyä on liikunta, koska silloin jos lihakset on hyvässä kunnossa ja tasapaino on hyvä, niin ei kaadu. kadibna waxaa muhiima marka si qofku uu dhicitaanka isaga ilaaliyo in uu jimicsi sameeyo maxaa yeelay jimicsiga markuu qofka sameeyo murqihii jirka ayaa dheelitirmaya marka way yaraanaysaa inuu qofku dhaco. Mä laitoin tuohon lasten kuvan tuohon alkuun, koska lapsethan liikkuu koko ajan. Sawirka waxaan ugu bilaabay carruurtay tiri maxaa yeelay carruurtu waa dad laga tusaale qaadan karo inta badan way socdaan. Lapsia on vaikea estää liikkumasta. maxaa yeelay ciyaalkana lama celin karay tiri jimicsiga iyo socodkii orodka lagama celin karo. Mutta aikuiset tahtoo jäädä paikalle istumaan sohvaan ja katsomaan televisiota tai juttelemaan ja juomaan kahvia ja syömään kakkuja tai juomaan teetä ja istumaan koko päivän ja se on paha. Laakiin dadka waxaa u sahlan inay inta iska fadhiistaan TV-ga hortiisa waxay iska cabaan maantoo dhan waxna wada sheekaystaan maantoo dhan ay fadhiyaan arrin aad u xun bay tiri. Ihan semmoinen hyötyliikuntakin, että päivittäin kävelee kauppaan, käy kävelyllä ja lasten kanssa ulkona puistossa ja muuta. Semmoinen ihan hyötyliikunta, se on hyvin tärkeää. Waxaa jira jimicsi la yiraahdo jimicsiga qofka uu heli karo kana faa'iideysan karo isagoo aan meel dheer u marin sida maaragtay dukaanka uu aado carruurta buusada loo raaco la geeyo waxyaabahaas oo dhan waa wax jirkaaga uu faa'iido ka helayo. Liikunta estää monia sairauksia ja on tärkeä osa niiden hoitamista, että sydän- ja verisuonitautia, verenpainetautia, sepelvaltimotautia, diabetesta, keuhkosairauksia. Liikunta on hyvä keino hoitaa niitä kaikkia. Jimicsiga ama sportiga waxyaabaha uu faa'iido u leeyahay waxaa ka mid ah inuu ka hortago xanuunada faraha badan sida wadnaha, dhiigkarka, maaragtay xanuunadaas oo dhan ay sheegtay ee tirada badan ee dadka ku dhaca waxaa ka hortagi kara jimicsiga qofku jimicsado. Erityisen tärkeää on, että jos on vaikka lonkkavaivoja, polvivaivoja, niin että liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla saa painon putoon, niin vaivat helpottaa ja kun lihaskunto paranee, pääsee paremmin liikkumaan. Qofka markii qaybaha jirkiisa oo kale xanuun uu ku yimaado waxyaabaha jimicsiga uu faa'iido ku leeyahay waxaa ka mid ah in markaasi jimicsiga uu ridayo cayilka faraha badnaa ee qofka culayska ku haya. Myös mieliala paranee, koska liikunta tuottaa semmoisia luonnon omia... Ei mennytkään. Liikunta tuottaa semmoisia omia niin kuin, mielihyvää aiheuttavia aineita keskushermostoon. Eli liikunnasta tulee hyvä olo, että kun rasittaa itseään, niin siitä tulee masennus lievittyä ja tulee mukava olo. Sidoo kale jimicsiga wuxuu qayb ka qaataa xanuunada xagga maskaxda ku dhaca oo marka qofka dhaqdhaqaaq uu sameeyo waxaa imanaysa in waxyaabihii dabiiciga ahaa jirkiisa ku jira ilaahay ku beeray maaragtay ka saaraya dhibaatadan iyo buuqan in ay jimicsigu keenaan marka aad buu ugu fiican tahay xanuunada maskaxda. Eikä pidä masentua, jos ei saa painoa putoamaan, koska jos on hyvä kunto, niin vaikka olisi vähän ylipainoinen, niin elää paljon pitemmälle kuin semmoinen huonokuntoinen laiha ihminen. Eli kunnolla on merkitystä, sillä lihaskunnolla. Mar walba jimicsiga faa'iido ku leeyahay waxaa ka mid ah haddii qofku uu jirkiisa uu dheelitiran yahay jimicsiga jirkiisa iyo uu dhisan yahay uuna cayilan yahay waa laga yaabaa inuu ka fiicnaado oo ka nolol dheeraado qofka caatada laakiin jirkiisa aan dhisnayn. Liikunta estää sitä verisuonten kalkkeutumista, johon liittyy monet sairaudet sitten vanhemmiten, niin kuin aivoverenkiertohäiriöt, sydänveritulva.
sidoo kale jimicsiga wuxuu qayb ka qaataa in uu ka qayb qaato habdhiska dhiig wareegga jirka kaasoo ka hortegi kara xanuuno fara badan oo ay ka mid tahay maskaxda dhiigga qofka ku furaya xanuunada wadnaha oo dhan waxaa keenaya jimicsiga in markaa uu qayb ka qaato habdhiska dhiig wareegga habdhiska wareegga dhiigga oo si fiican u shaqeeya. Oli hauska kuulla, että imaami kertoi näin paljon, mitä islamin uskoon liittyy semmoista, että pitää hoitaa itseään hyvin ja liikkua paljon ja pysyä terveenä. Se oli hyvä kuulla. waxay ahayd arrin aad u wanaagsan inaan imaamka ka maqla bay tiri barnaamijka uu soo diyaariyay oo ka hadlaya sida islaamku u daryeelay dhinacan jimicsiga jirka iyo in jirka qofka uu ka taxadaro. Liikunta vahvistaa luita, eli erityisesti tämmöinen juokseminen, hyppiminen, pomppiminen, pelaaminen, niin tämmöiset vähän niin kuin iskutyyppinen liikunta, se vahvistaa luita, että ei tule niin helposti murtumia. sidoo kale jimicsiga gaar ahaan kuwan ku saabsan boodboodka iyo orodka iyo waxay xoojiyaan lafaha si aan markaa ay uga hortagaan inuu lafuhu burburayso ku dhaco. Luiden kunto tarvii myös kalkkia, eli kalkkia on myös vihanneksissa ja soijassa ja tämmöisissä myös kasvisruuissa, mutta tietenkin erityisesti maitotuotteissa, että jos pystyy syömään maitotuotteita, nyt saa niitä laktoosittomia maitotuotteita paljon kaupasta, että koska laktoosihan voi tuottaa osalle mahavaivoja, mutta ne laktoosittomat tuotteet, niissä on ihan yhtä hyvin kalkkia. Niitä kannattaa suosittaa. Sidoo kale waxaa lafuhu u baahan yihiin calcium. Calciumkaasna waxaa laga helaa qudaarta iyo waxyaabahan sooyada ama nuunada loo yaqaano iyo waxyaabaha caanaha ka samaysan oo dhan. Qofka marka in uu calciumka uu ka taxadaro waa arrin muhiim ah. Mutta jos ei pysty syömään maitotuotteita, niin niitä saa semmoisia kalkkitabletteja, missä on sekä D-vitamiinia että kalkkia, ne on hyviä. Haddii caano aadan cabbi karin sida dhibaatada dadka lactose-ka qaba oo kale waxaa dhici karta markaa inay kugu yaraado calcium. Sidaa darteed dukaan farmasiga waxaa laga helaa kiniinigii calciumka ahaa isaga iyo D-vitamiinka weliba isku jira. Erityisesti nuoret naiset tarvii, jos saa lapsia, niin paljon kalkkia, koska lapsen kaikki luut muodostuu siitä äidin kalkkivarastoista. Tarvii lisää kalkkia sitten. Dumarka dhalinta yar weliba carruurta waxay u baahan yihiin calcium fara badan maxaa yeelay calciumkii jirkooda ku jiray waxaa ka qaadanaya carruurta lafahooda waxay ka samaysmaan ay ka qaadanayaan calciumkii hooyada. Sidaa darteed marka mar walba waxay u baahan tahay inay gabadhu ka taxadirto arrinkaas. Liikunta alentaa verenpainetta. Tuohon mä laitoin, toi on tyypillinen suomalainen liikuntamuoto, kun kävelee koiran kanssa pimeässä. Että ikävä kun täällä on niin pimeää, suurin osa vuodesta. waxaa socodka u yareeyaa way tiri dhiigkarku yareeyaa marka waa ka xumahay tiri tii dhaqankeena unbaan idiin soo qaaday tiri iyo mugdigii iyo qof idin la socda laakiin ujeedada waxaa waa iyaga maahane waa socodka uma. Kaikki varmaan tietää mikä on diabetes, eli diabetesta on kahta lajia, on sitä nuoruuden diabetesta, jossa täytyy heti aloittaa insuliinihoito ja se ei liity ylipainoon, mutta sitten on tätä kypsän iän diabetesta, joka liittyy usein siihen keskivartalolihavuuteen, että alkaa tähän keskivartalolle kertyy massaa, niin siihen liittyy sitten usein tämmöinen metabolinen oireyhtymä, eli vyötärölihavuus, verenpaine nousee, verensokeri nousee ja veren rasva-arvot menee sekaisin. Diabeteska intiina badan waa taqaanaan ay tiri laba nooca jira nooca insuliinka u baahan ee labada loo yaqaan iyo nooca kale ee ka dhasha markii qofka dhexdiisa meesha vuutarada loo yaqaano ama suunka laga xirto ay weynaato ka dhasha. Taasna waxaa ka dhalanaya markaa dhibaatooyin fara badan oo sida dhiiggii baa kacaya sokorta dhiigga caadiga waxaasoo dhan bay keensanaysaa. Se metabolinen oireyhtymä on hyvin yleinen, paitsi tietenkin maahanmuuttajilla, niin myös suomalaisväestöllä hyvin yleinen. Arrintaas maaragtay sheegtay ee dhinacan noocan caloosha uu keeno waa mid waxay tiri dadkaas waddanka usoo guuray iyo dadka finishkaaba u badan. Siitä ollaan niin huolissaan sen takia, että siihen liittyy tämmöinen suurentunut näiden verisuonisairauksien riski. Waxaana khatar markaa keeni karta in ay macnaha xididadan wadnaha iyo dhiigga qaada markaas ay dhibaato ku timaado oo ay weynaadaan ama cillad ay ku timaado. Liikkumalla ja pitämällä painon kurissa ja syömällä terveellisesti voi estää näitä tauteja, eli sepelvaltimotauteja, sydänveritulppia, aivohalvauksia, kihtiä, katkokävelyitä, diabetesta ja niitä sen niin kuin seurannaisvaikutuksia. Xanuunadaas ay sheegto oo dhan ee ku saabsan diabetiska iyo xanuunadan halbowlayaasha dhiigga qaada iyo wadnaha iyo wadna xanuunka intaba waxaa lagu yarayn karaa qofka jimicsi wanaagsan sameeya cunto caafimaad leh uu cuno
معناها waxay keeni karaan labadaas in qofku uu ka hortago dhibaatooyinkaas oo Tuossa on kuva sepelvaltimosta, kuinka se ahtautuu, kun sinne kertyy sitä rasvaa sinne seinämään. Sawirkan wuxuu ka hadlayaa xanuunka ku dhaca wadnaha marka sida wadnaha isugu soo ururaya markii ay xeertu ay ama jirka dufanku uu ku ururo. Laihdutus on paras hoito näihin kaikkiin ongelmiin. Painonpudotus. Dhibaatooyinkaas oo dhan waxa weeye in qofka miisaankiisa uu rido ayaa daawo ah. Tupakka on pahin tappaja. Sigaarka oo kale waa dilaawe, waa midka ugu xun wax dilaa. Helsingissä on tämmöinen tupakkaklinikka, että jos on tupakkaongelma, niin voi päästä sinne vierotusryhmään ja saada apua siihen tupakasta vierotukseen. Helsinki waxaa ku taalla meel loogu talagalay qofka sigaarku uu dilooday ama dhibaato uu ku hayo in looga daaweeyo oo uu tegi karo si markaasi jirkiisa looga saaro. Tupakkaklinikka on Kallion terveysasemalla siellä 3. kerroksessa. Sinne saa itse ottaa yhteyttä. Meesha caafimaadka Kallion dabaqa saddexaad ku taalla qaybta loogu talagalay dadka sigaarka qofka asaga la xiriiraya. Tuossa on se nettiosoite www.helpiste.itsehoito/tupakkaklinikka. Sieltä löytyy ne yhteystiedot. Waxaa ka heli kartaan xiriirkooda iyo waxyaabo telefoonkooda iyo sida loola xiriiri karana meesha dadka ay ku soo qortay aad ka helaysaa. Tässä on yksinkertainen, miten pitäisi syödä, eli puolet vihanneksia, 1/4 perunaa tai riisiä ja sitten 1/4 lihaa. Niin tämmöisellä mallilla jos syö, niin pysyy terveenä. Arrintan waa arrinta kole dhibka nagu ah laakiin sida saxda waxa loo cuno ay sheegtay gabadha waa sidaas in saxanka kala bar qudaar uu noqdo 4 meelood oo meel ay noqoto baradhadii inta kalena hilibkii bariis iyo baasto wax yar ku leedahay meeshaas. Jos ei ole mitään erikoisia oireita, niin voi aloittaa rasittavammankin liikunnan ilman mitään riskiä. Mutta jos on rintakipuja ollut rasituksessa, niin silloin täytyy mennä ensin lääkäriin. Haddii qofka uu calaamado isku arko inta ay soo sheegtay laakiin xabadka ama meeshan xabadkuusan xanuunaynin jimicsi uu aadi karaa laakiin mar haddaad dareento xabad xanuun xabadka ku xanuuna markaa socoto ama daal aad dareento marka waxa way dhakhtarka inaad la xiriirtido waxaa dhici karta in wadnaha markaa wax ka jiraan. Suositellaan kaikille tämmöistä kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ja sitten tämmöistä luita parantavaa liikuntaa, mutta nämä on vähän semmoisia spesifisiä, ei niistä tarvitse niin ymmärtää, kunhan liikkuu säännöllisesti. Tässä puhutaan, niin kuin, että millaiset suositellaan, että tuommoista kestävyysliikuntaa ja sitten semmoista luustoa vahvistavaa. jimicsiyada noocan oo kale sida hadda midkaas aerobiga oo kale iyo waxay tahay waxyaabaha jirkan aan dhibaato badan u keenaynin lafahana xoojinaya culays badan aan lahayn. Kuntopyörä on hyvä vaihtoehto, jos on huonot polvet tai lonkat eikä pääse oikein ulkona liikkumaan tai on huonot kelit, niin kuntopyörä on hyvä. Sitten voi katsella vaikka yhtä aikaa televisiota tai kuunnella ei kun jotakin jutella toisten kanssa tai muuta, mutta se kuntopyörä pitää olla siellä tiloissa, missä muutenkin on, eikä viedä mihinkään kellariin, kun sinne ei kun mentyä. baaskiilka la wado uu fiican yahay wuxuu ku fiican yahay in uu ka caawinayo miisaanka qofka uu xadido iyo haddii miskaha iyo maaragtay qofka xanuunayaan inuu maaragtay laakiin mar walba waa inuu guriga ku dhex yaalo meel howlahaagii kalena aad ka wadin kartid. Kuntopyörää voi kokeilla näissä liikuntakeskuksissa, että kuinka se sopii itse. Qofka intuusan soo gadanna wuxuu isku tijaabin karaa meelaha jimicsiga oo kale bar sida uu yahay haddii marka aad u bogto ama kuu fiicnaado markaas soo qaadan karto. Ja tärkeintä on, että on ystäviä, joiden kanssa liikkuu, että tulee iloinen mieli. Sidoo kale waxaa muhiim ah qofka inuu helo saaxiibo oo jimicsiga la aadi karo si aad farxad iyo aad uga hesho wanaag iyo raynrayn aad uga hesho macnaha qofka saaxiib helo dhiirigelin ku geliya. Muistakaa, että iän myötä voi tulla tämmöinen rytmihäiriö, että on hyvä, jos kuuntelee itseään, että pitää olla hyvä olo kun liikkuu, ettei tule paha olo. Koska jos tulee paha olo aina kun rasittaa itseään, niin on hyvä käydä lääkärissä, ettei ole mitään rytmihäiriöitä. Markastana waa inuu qofku xusuusnaado da'da mar walba ay ku xiran tahay da'diisa intay ku hortaba waxaa dhici karta ritmigii ama garaaci wadnaha in wax isbedel dhacaan. Mar walbana waxaa fiican qofku inuu ka fakaro in jirkiisa uu caafimaad qabo. Haddii aad dareento daal fara badan iyo dhinaca wadnaha aad wax ka shaqeyn markaa dhakhtarkeena aad dawey. Varsinkin kun on yli 50-vuotias, nuorilla harvoin. weliba qofka hadduu 65 iyo wixii ka weyn yahay
laakiin dadka yaryar oo dhalinyarada iyaga waa ku dhifinaysaa ku dhacday. Tuossa on niitä osoitteita, joista löytää niitä liikuntapaikkoja, mutta nyt Maria kertoo tarkemmin ja nämä liikuntaviraston ihmiset, missä voi liikkua. meelaha jimicsiga warbixintooda halkaas ku taal laakiin gabadha Maria oo ka socota qaybta jimicsiga ayaa maaragtay noo sheegi doontay tiri meelaha la tegi karo. Kiitos, että kuuntelitte minua ja me vielä keskustellaan sitten, kun kaikki on puhunut. Waa mahadsantihiin tiri inay dhegaysateen waana sii wada macnaha markii dadka wada hadlaan waan sheekaysan doonaa doorkooda wada qaataan. No niin, jatketaan ohjelmaa ja omasta liikuntakokemuksesta tulee kertoa valmentajat Yonis Adam Bulle ja Khalid Ibrahim. Hadda waxaan nala hadli doona dhalinyaradeena arrimaha jimicsiga iyo tababarnimada ku takhasustay Yonis iyo Adam ya. Dik Soomaali ku hadlay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli mun nimi on Yonis Adam ja tässä on Khalid Ibrahim, valmennuskollega. Me valmennetaan nuoria jalkapallojoukkueita 02, 99 ikää, 00 ikää ja Khalid valmentaa 02, pari muuta joukkuetta ja mä valmennan paria joukkuetta. Tehdään tätä ihan koulun ohella. Pääsääntöisesti ollaan molemmat opiskelijoita ja meidät pyydettiin tänne kertomaan vähän valmentajan ja jalkapallokouluttajien näkökulmasta puhumaan tänne eli puhutaan pääasiassa minkälaista uraa me ollaan miten ollaan päästy valmentajiksi suomalaisiin joukkoihin. Eli molemmat joukkueet ovat suomalaisia joukkueita, ihan HG ja espoolaisia joukkueita, toinen Haukilaista ja toinen Matikylä Olari alueelta. Ja omasta kokemuksesta sekä minkälaisia ongelmia somali- tai maahanmuuttajanuoret, minkälaisia ongelmia meillä on ollut joukkueessa. Yonis wuxuu sheegay sababta loogu yeero waxay tahay isaga iyo Khalidba waa tababarayaal kooxaha kala duwan ee dhalinyarada ama caruurta ee wadankan ayay tababarayaal ka yihiin. Esbo marka waxay u yimaadeen markaan soo koobo intii uu sheegay in ay dadka maadaama caruur ay leeyihiin ay banooniga ciyaarta bal inay noo sheegaan waxyaabihii khibradooda ay la kulmeen maxaa dhibaato ah maxaa loo baahan yahay intaas ugu muhiimsan. Joo, eli mä nyt annan mun kaverille kollegalle Khalidille ja se avaa tätä aihetta. Khalid bilaabi doona marka. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Khalid. Siduu u sheegay muxuu ahaa Yonis aniga Yonis waxaan tababarnaa kooxa finisha oo ku jiraan ajaanib iyo finish labadooda. Waxaan isku daynaa inaan ka hadalno inta badan caruurta Soomaalida aan aragno dhibaatooyinka haysta oo aad uga mid yihiin waalidka waa la socon midnaba xagga lacagta inay og yihiin inuu tago kubad ama inuu la taginba taasoo kuga imanaysa ilmihii marna inuu tago marna inuu waxba sameeyo kubaddu aad bay u kala qaybsantaa dhibaatadu ma aha inay kubad ciyaaraan ama iska ciyaaraan qaarkood kubadda aad bay ugu fiican yihiin oo waa qaar muxuu ahaa kubad noqon kara qaarkoodna waa qaar muxuu ahaa iska ciyaara oo jecel caruurtu mar walba waxay u baahan yihiin meel ay ku farxaan oo ay ku qaybsadaan caruurnimadooda maadaama ayna haysan muxuu ahaa sida ayna meesha dalkoodii saxda ayna ahayn ayna meelo badan oo ay ku farxaan haysan qasab waxay u baahan yihiin meelahan kooxyaasha si ay ugu farxaan ay waqtigooda ugu qaataan laakiinse inta badan ma fahmaan muxuu ahaa waalidka Soomaalidu inayna caruurtan sida farxadda finish ku kala haysan laakiinse waxay haystaan kooxaha kubadda in ilmuhu gaala ka qaadanayo kala wax soo kala taasna waxa u fiicnaan lahayd muxuu ahaa in caruurta laga caawiyo si ay muxuu ahaa u qaataan waqtigooda caruurnimo taasoo ka caawinaysa waqtigii iskuulka ama waxyaabaha kale because ilmihii markuu farxo uu soo farxo kubaddii soo ciyaaro wuxuu hani u helayaa ama inuu sameeyo iskuulka wixii looga soo diray ama quraan ha noqdo ama wuxuu doona ahaado asagoo farxan because qofka bini'aadanka markuu positive yahay wax baran karaaba ama wax walba samayn karaa waxaan ugu tababarnaa finishyaal iskuulka 10 9 micnaheedu ma aha marka qofku kubadan ciyaarayo inay ku saaqinay iskuulkii ayagu haddana maalin walba u ciyaaraan kubadda laakiinse waqti bay siiyaan waxbarashada waqti bay siiyaan ciyaarta because waxay og yihiin inay suuq ma tagaan oo kubad ka yimaadaan ama waxyaabo kale ma sameeyaan laakiinse farxadooda iyo ciyaartimadooda waxay ku qaataan inay koox yimaadaan train gareeyaan oo ay ku farxaan
oo xagga laba ay ka faa'iidayaan mid oo ay tahay tii caafimaadka oo inay caafimaad ka faa'iidaan because ilmihii markuu weynaado caafimaad fiican buu haystaa jir fiican buu leeyahay si fiican buu u tirigeliyay laba wuxuu ka faa'iidayaa inuu muxuu hayaa fahmo sida dadka loola dhaqmo oo carruurtii kale wax la qaybsanayaa wuxuu fahmayaa in la xanaaqin because carruurta Soomaalida waxa laga yaabaa markay kubadii maanta xataa kuwa waaweyn inay isla markiiba isla dagaalaan laakiin kuwan waxay isla fahmayaan markay yar yihiin bay soo fahmayaan in bilaalaga wax la qaybsan karo oo kubad bay wada ciyaarayaan oo isku baasanayaan haddii mid kale wax ku xanaaqo kii kale isku sheegayaan marka wuxuu fahmayaa waxa sidii la isku dhaqmi lahaa dadka kale ilmicneegu maaha kubadda la iska tuurayo marka dambe marka waalidka laakiinse waalidka Soomaalida badan saas ma fahansanayo waxa uu wada yaqaanaa kubadda tuuritaankeeda in kubadda la tuurayo laakiinse cilmi badan ku dhex jira oo in ahayn in kubadda la tuuro laakiinse wax faa'iidada ay leedahay in laga qaato taasna waxa ku fiican muxuu ciyaarta Soomaalida inaan muxuu hayn inagoo kubadda aan taageerin laakiinse waxa uga imanaya carruurta inaan taageerno oo taasina tahay waxyaabo badan marka dambe carruurtu ka faa'iidayaan noloshooda xagga caafimaadka xagga muxuu hayn inay jadwal fiican ku samaystaan dhibaatooyinku way badan yihiin laakiin ugu weyn waxa weeyaan taas inayna ogeynba Soomaalidu muxuu hayn carruurtooda xaggay joogaan ama ayna muxuu ka warhaynin taasna waxa fiicnaa leh inay muxuu hayn raacaan mararka qaarkood kubadda u raacaan oo eegaan because carruurta Soomaalida markay kubadda ciyaaraan inta badan kaligood baa imaada trainingka ama ciyaarta wayna ka tagaan kaligood mana oga muxuu hayn waalidkii inuu la joogaa inuu la joogin baba laakiin waxa fiicnaa leh mararka qaarkood inay waalidkood soo raacaan talabaadna waa xagga lacagta oo muxuu hayn carruurta inta badan markay kooxo fiican tagaan ayna lacagtii u qiimahaynin because markii hore waalidku lama socon mana oga muxuu lacagta cid ka bixin lahayd inta badanna way ka haraan kooxaha fiican because qiimahooda ma tagi karaan waalidkiina ma sheegi karaan laakiin markuu waalidku og yahay markaa uu ku caawin karaa lacagta xagga lacagta ama xagga labadaba because hadduna xataa asagu haynin waa laga siyaabo badan loo caawiyaa jirta inuu asagu muxuu ahaa meeshii tago uu soo qaato because ilmaha yar asagu ma garanayo sidoo caawinuu heli lahaa annaga xaqiiqo intaas uu ka yahay baan u malaynayaa No niin, jatketaanpa sitten ohjelmaa ja tutustutaan vähän Helsingin kaupungin liikuntaviraston toimintaan hyvin lyhyesti. barnaamijkan sii wadanayna waxay hadda idiin sheegi doontaa shaqada ay qaadato qaybta isboortiga degmada Helsinki. Liikuntavirasto on yksi monista liikuntapalvelujen tuottajista. Waa mid ka mid ah meelaha ama goobaha arrimaha isboortiga ku shaqada leh. Työväenopisto, nuorisoasiankeskus ja monet muut kaupungin hallintokunnat, monet järjestöt, yksityiset liikuntakeskukset tuottavat myös liikuntapalveluita. Meelo badan baa wax ka qabta arrimahan qaybaha dhalinyarada iyo meelaha gaarka ah ee arrimaha isboortiga ka shaqeeya. Waxaasoo dhan waxay qaabilsan yihiin isboortiga iyo jimicsiga, laakiin qaybtan waxa iska leh degmada Helsinki. Mutta kaikista suurin liikuntapalvelujen tuottaja on liikuntaseurat, joita Helsingissä on noin 350. Laakiin kuwa ugu waaweyn ee arrimaha isboortiga ka shaqeeya ama wax ka qabta waxa weeye waa kooxaha ama ururada isboortiga qaabilsan oo tiradooda Helsinki marka la isku daray gaarayso ilaa iyo 350. Liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen liikunnan keinoin. Ujeedada ama hawsha ay ku qabanayso waxa weeye dadka reer Helsinki qaab nololeedkooda ama nololeedkooda in la horumariyo iyo sidii ay awood wax qabad u lahaayeen oo fiican. Miten sitten Helsingissä voidaan liikkua? Meillä voidaan ulkoilla, meillä voidaan kuntoilla, voidaan kalastaa ja retkeillä. Helsinki qofka waxyaabo fara badan buu ku dhex samayn karaa. Uu socon karaa, macnaha jimicsi buu samayn karaa, uu maaragtay uu kalluumaysan karaa. Sidoo kale doon buu ku wadan karaa, wuxuu aadi karaa safar yar oo gaaban buu bixi karaa. Ja liikuntaa voidaan harrastaa saaristoissa. Tässä ensimmäisenä tulee mieleen Pihlajansaari, jos olette käynyt tutustumassa joskus Pihlajansaareen, joka on tuossa Helsingin edustalla. Waxaa kaloo jira meelo jasiirada yaryar ah oo Pihlajansaari oo kale sida dad badan arkeen oo qofka uu bixi karo.
Eli ulkoilureiteillä voi pyöräillä, voi kävellä, voi hölkätä, voi juosta. qofka wuxuu mari karaa wadooyinkan loogu talagalay jimicsiga ama socodka loogu talagalay sida baaskiilka oo kale wadooyinkan yar oo maaragtay jidka ka dhinac samaysan. On erilaisia puistoja, missä voi liikkua eri tavalla. waxaa jira meelo ka buustooyin ama loogu talagalay cayaarta oo kala duwan maaragtay oo mid walba qaab gooni uu leeyahay. Löytyy myös erilaisia urheilukenttiä, missä voi monipuolisesti harrastaa liikuntaa. waxaa kaloo ku yaala garoomo fara badan oo qofku sportiyo kala duwan ku samayn karo. Meillä on paljon sisäliikuntatiloja ja suurimmat sisäliikuntatilat ovat Töölön kisahalli, mikä on tuossa Töölössä, ja sitten liikuntamylly tuolla Myllypurossa. waxaa jira kuwa maaragtay degan sida midaan ka sahaday iyo Mulluburo oo kale oo qofku macnaha xilli walba oo sanadka uu wuxuu doono ku samayn karo. Ja sitten meillä on lähiliikuntapaikkoja, missä voi harrastaa liikuntaa niin vanhemmat kuin lapsetkin. waxaa jira goobo jimicsi oo qof walba u dhow meeshuu degan yahay oo qof weyn iyo carruurba ay ku samayn karaan jimicsiga. Täällä Pasilassa on lähiliikuntapaikka. Kuinka moni teistä asuu Pasilassa? Hadda Basil oo kale waxaa ku taalla meeshaas inta qof ay Kuinka moni teistä asuu täällä Pasilassa? meeqa Basil degan inta Basil degan gacanta taagtay. Täällä on lähiliikuntapaikka, kun lähdetään kävelemään suoraan tästä eteenpäin tuonne messukeskuksen taakse, lähemmäs Koskelan tietä, niin siellä on lähiliikuntapaikka. Ja siellä on kuntoiluvälineitä, missä voi vahvistaa lihaskuntoa. Dhinacan hadda ay tilmaantay waxaa ku taalla meeshaas jimicsiga oo qofku xataa uu murqaha ugu dhisan kari karo wax la qaadayo. Sinne on just sopiva kävelymatka joko tässä messukeskuksen ohi taikka sitten Käpylän liikuntapuiston ohi. Ja siitä saa samalla kävelykuntoa ja sitten voi vahvistaa lihaksia siellä kuntolaitteella. labada dhinacan messukeskuska iyo dhinacan kale Käpylä ayaad kasoo geli kartaa marka laba wax buu isku helaya qofkii isagoo socod uu helay iyo isagoo murqihiisa xoojiyay. Eli meillä on monta mahdollisuutta harrastaa omaehtoista liikuntaa, mutta sitten vaihtoehtona on ohjattu liikunta. macnaha qofku waxa asaga sporti u gaara asaga uu samaystay ayuu samayn karaa sidoo kalena waxa la siin karaa hagid baa loo macnaha tilmaamaa la siin karaa uu ku sameeyo. Ja koska liikuntaseurojen toiminta on meille hyvin tärkeää, niin liikuntavirasto tukee liikuntaseurojen toimintaa. sidoo kale qaybtan sportiga ee degmada Helsinki waxa ay caawimaad siisaa ururada kala duwan ee arrimaha sportiga ka shaqeeya. Ja liikunnanohjauspalveluita, tämmöistä peruspalvelua me tuotetaan yli 800 ohjattua tuntia viikossa. waxyaabaha ay sameeyaan adeegga ay sameeyaan waxaa ka mid ah hagis ee hagaan ururada arrimahan ku saabsan ee ka shaqeeya ilaa iyo maaragtay 800 saacadood ayaanu ku bixinaa bay adeeggaas asaasiga ah ee aanu siino ururada kala duwan. Meidän järjestämä liikuntatoiminta on maksullista, mutta se on edullista. waa mid waxay tirqaabkeena anaga macnaha u shaqeeyno waa mid lacag ay tiri laakiin waa raqiis. Liikuntatoimintaa järjestetään 10 toimipisteessä ympäri kaupunkia. ilaa 10 qaybood oo magaalada Helsinki ku taalla ayay ku sameeyaan arrimahaas ay ku diyaariyaan. Ja meidän tärkeimmät kohderyhmät ovat tietysti lapset ja nuoret. qolada xoogga aan saarayno ee ugu muhiimsan waa dhalinyarada iyo carruurta. Meillä on alakouluikäisille lapsille Easy Sport-toimintaa, mikä on semmoista matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. carruurta yaryar da'da iskoolka macnaha ka yar waxaan u sameynaa sportiga fudud oo ah mid si fudud loo barayo. Fun Action-toiminta on nuorille 13–17-vuotiaille tarkoitettua liikuntatoimintaa. noocaas loo yaqaan Fun Action-ka waxaa loogu talagalay dhalinyarada da'doodu u dhaxaysa 13 ilaa 17. Ja sitten meillä on Nyt-hanke, joka on 17–29-vuotiaille. 29. 29. waxaa jira mashruucaas loo yaqaano Nyt-hanke oo isagana loogu talagalay 17 jir ilaa 29 sano. Sitten meillä on alle kouluikäisille lapsille uimakoulutoimintaa. carruurta aan weli iskoolka gaarin waxaan iyagana u sameynaa bay tiri dabaal inay bartaan oo la baro. Ja kun tässä kesä lähestyy, niin meillä on paljon
lapsille paljon vapaa-ajan liikuntatoimintaa. On liikuntaleirejä, uimakouluja, easysport-toimintaa ja niin edelleen. maadaama hadda samarkii uu soo dhow yahayna waxaa jira qaabab jimicsi ama isboorti qofku waqti kasta samayn karo sida xagaabaxa oo kale iyo waxyaabo lagu sameeyo marka iyagana fara badan yihiin kuwaas. Ja me vastataan myös koulujen uinniopetuksesta, eli 1-5-luokkalaiset pääsevät uimaan 4 kertaa vuodessa uimahalliin. Waxaan kaloo aan shaqo ku leenahay tiri xisadaha iskuulka ee dabaasha ciyaalka lagu baro galaaska 1 ilaa 5 sanadkii 4 goor ayay aadaan meelaha dabaasha. Sitten meillä on toimintaa aikuisille, eläkeläisille, yli 63-vuotiaille ja erityisryhmille. Erityisryhmillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla toimintakyky on rajoittunut. Waxaan kaloo aanu adeega siinaa dadka waaweyn iyo dadka howlgabka iyo kooxaha gaarka kuwaasoo loola jeedo dadka dhaqdhaqaaqooda uu xadidan yahay ama xag caafimaad ha noqoto ama si kale aan wax badan samayn karin. Ja nämä liikuntamuodot, mitä me järjestetään, niin erilaisia jumppia, kuntosalitoimintaa ja sitten vesiliikuntaa. noocyaalka jimicsiga aan sameeyno ama noocyada waxaa ka mid ah yumbada waxaan loo yaqaanay boodbooditaanka ah sidoo kale jimicsiyada hoolasha aan ku sameeyno iyo isboortiga biyaha dhexdiisa. Tämän lisäksi me järjestetään liikuntaneuvontaa, liikuntainfoa. Waxaan kaloo sameynaa bay tiri aan diyaarinaa in aan talo ka bixino dhinaca arrimaha jimicsiga inaan warbixin siino. Ja meillä on seniorisäpinät, mikä on tarkoitettu eläkeläisille, mutta toki sinne voi nuoremmatkin tulla. Niin liikuntamyllyssä ja Pirkkolan uimahallin tiloissa siellä voi kokeilla erilaisia liikuntamuotoja. Waxaa jira qaybtaas iyadana senior sabinoota ay ku sheegtay oo ay tiri maaragtay dadka waxaa loogu talagalay antexios toista vielä aikuisilla vai se on eläkeläisille seniorisäpinät, mutta sinne voi toki tulla nuoremmatkin. Mitä he tekevät sitten? He voivat sinne osallistua muiden mukana. Macnaha dadka waxaa loogu talagalay howlgabka ah bay tiri arrintaasaan u sameynaa iyagoo dadka kale wixii ay sameynayaan kala qayb qaadanaya. Ja sitten meillä on liikuntahulinat lapsille 2-8-vuotiaille, jotka tulevat liikkumaan vanhempiensa kanssa, samaten kuin perhepalloilussa. Siinä vanhemmat ja lapset potkivat palloa yhdessä. Jimicsigan laga wada qayb qaadanaya isagana oo carruurta soo raacday waalidkooda oo kale 2 ilaa 8 jirka oo marka ay kulli wada ciyaarayaan iyagana u sameynaa. Ja tämän lisäksi me järjestämme tapahtumia, jossa kerromme liikunnasta ja kokeilemme erilaisia liikuntamuotoja. Waxaan kaloo qabanaa kulamo aan kaga sheekeynay oo dadka uga warbixinayno arrimahan jimicsiga. Ja meitä on täällä liikuntavirastosta 4, eli täällä pöydällä on Saila Hänninen ja Kaisa Laine. Ja sitten täällä pöydällä on Saana Saarikivi ja minä. Ja täällä on liikuntaviraston ja vähän järjestöjen esitteitä, mitä te voitte tulla hakemaan, ja me voidaan kertoa teille lisää liikuntatoiminnasta. Waxaa hadda halkan jooga oo ka socda 4 qof oo aniga iyo gabadhaha xagga jooga Saila, Kaisa iyo Saana. Waxay tiri waxaa kaloo halkan aan ku diyaarinay information ama waraaqo kala duwan oo warbixino ah oo ka hadlaya arrimaha isboortiga. Ja sitten on tämmöinen kysely, ja me toivotaan, että te täytätte tämän kyselyn. Me kysytään tästä tilaisuudesta, että mitä mieltä te olitte. Arrintan waa arrin aad u muhiima waxaa waraaqdaas gabadha idin keentay aad macnaha waxaan ka codsanaynaa inaa ula shaqaysaan. Waxay ka hadlaysaa kulankan maanta meesha ka dhacay sidee buu yahay. Dadkan waa dad hawsha qabtaan jecel in wixii khalad ka jira wixii sax labadaba loo sheego. Marka arrintaas inaan la jaanqaadaan oo runtii la buuxisaan aad baan idinku dhiirigelinaya. Ja tämä löytyy suomen että somalinkielisenä. Qofkii raba af Soomaalina iyadoo Soomaaliya la siinaya. Qofkii raba iyadoo luqadda Finishkaana way taallaa. Joo. Kiitoksia. Elikkä nyt on tee ja kahvi. Tee ja sämpylätauko. Hadda waxay tiri tawkada la geli doonaa shaahi iyo wixii loogu talagalay marka la gabdhaha joogaan malayna insha Allah. Joo, ja sitten voitte tänne tulla niin hakemaan materiaalia. Kadibna waxaa qaadanaysaan maaragtay waraaqahan waa ka qaadan doontaan. Sidoo kale gabdhaha oo foomamka hadda ugu dhiibay gabdhaha. Yostama annetaan mid isugu baahata xitaa tabat. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkan aad ka soo qayb gasheen barnaamijkanna waa barnaamij ay wada wadeen dhammaan Somali Liito masaajidka Helsinki Islamic Center iyo hay-ada Helsinki Liika Davirasto hawshanna waa hawl sii socon doonta haddii aan la yidhaahdo xataa waxaan isku dayi doonaa masaajidka in laga faa'iidaysto tirooyinka hoose oo qaabkii loogu qaban lahaa barnaamijkan jimicsiga dumarka haddii aan la yidhaahdo hawshaasna wixii bar ka soo qabsoono korba waynu wada socon doonaa haddii aan la yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin hawshaas ka soo qaybgalkeena wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi rahmaani rahiim programka wuxuu soo bilaabmaday xilli hore waxaana lagu yeeray faanta shiraan ku qabsan annaga iyo Helsinki Kaupunki iyo faanta Kaupunki iyo Somali Liito oo looga hadlayay dumarka Soomaalida markii uu soo baxay reportka in dadka Soomaalida weliba inay yihiin aaskan dumarka waxaan garanay in Soomaalida meelahooda loogu tago sida masaajidda maanta waxaan fadhinaa masaajidka Helsinki reer faanta cidii ah waxay ka dhici doontaa goyn kula waxa loo sameeyay programka waxa weeyaan in laga faa'iido in codkiina uu gaaro dadka isboortiga qabaqaabiya in inagu aan dooranno waxa aan rabno oo aan sheegano runtii waxaa loo baahan yahay kan waa kii jimicsiga waxaa ku xigi doona kii cuntada iyo mataqaana caafimaadka afka in loo diyaargaroobo laga faa'iidaysto codkiina wax badan baa la maqlina la maqlo annaga markaan u tagno Helsinki Kaupunki qaybta isboortiga iyo mataqaana faanta Kaupunki cid kasta la hadalno dadka aad matalaysaan oo sheegaysaan kama faa'iidaystaan jimicsiga annaga Somali Liito waxay qabatay jimicsi oo dabaala dhulka buura ku qabatay rag iyo dumarka maalintii ugu horeysay buuxsantay intaa ugu talagalay marka baahidu way badan tahay laakiin faa'iidadeeda in la arko weeyaan dadka mataqaana in baahida ay ka faa'iidaysanayaan ay gudbinayaan qof dadka inta fadhiya inta badan ilmay leeyihiin ilmihiina isboortiga helaan ay u bahnaayeen waxaan ogahay aniga ilmo yaryar oo Soomaaliya oo kooxa u ciyaara oo kooxaha aan laga bixinin fiiga ama lacagta mataqaana kooxda oo la soo eriyo oo qaarkood anaga la xiriirno waxaa jirta ilmaha faamilada inkamkoodu yaryahay ama dhaqaalahoodu yaryahay in loogu talagalay lacagtaas lagu siiyo kooxda meelo laga dambadaa jira ciddii aan aqoonin waxaan u sheegaynaa golaha midnimada Soomaaliyeed in ay ka caawin doonaan haddii la yiraahdo hooyooyinka aan aqoonin in loo xilsaari doono cid ka caawisa maanta waxaa in la joogta gabadha haysta Helsinki Kaupunkiga qaybta isboortiga runtii codkiina muhiim weeyaan inta ilmaha iska aamusaan ina u sheegtaan waxa saxda u baahan tihiin muhiim bay ahayd laakiin inaga dhan wada hadlaynaa see marka codkina loo maqlaa warqado qoraal la idin qaybiyay qofkii haysta ha ku qoro waxa mataqaana aad dhibaato aad dareemaysaan annagana si tabarucaad ah ayaan waxaan ugu bedeli doonaa luqadda finishka hadii la yiraahdo marka aad baan kugu mahadnaqanaa masaajidka oo mataqaana asagana hawshan ogolaaday oo arrin dacwo ah in mataqaana maamooyinka looga faa'iideeyo runtii waa qayb cibaadada ka mid ah laftirkeeda ayagana aad ugu mahad celinayna Helsinki Kaupunkiga mataqaana qaybta Liika Davirasto ugu mahad celinayna wada shaqayn fiican insha Allah waa ka sugan hadii la yiraahdo waxaan kaloo wadnaa oo laga rabaa maamooyinka in ay ka qayb qaataan isboortiga ilmaha runtii waxa odayaashu waa jimicsadaan way orordaan meelahaas iska fadhiyaan laakiin ilmaha iyo maamooyinka muhiimadda ugu weyn anaga mataqaana saari doonaa marka waxaan isku dayaynaa in masaajidkan iyo masaajidka faanta iyo esbo haddii la yiraahdo ilmaha la aruuriyo oo la sameeyo program hadda Somali Liito ay wado oo ah isboorti inay helaan saariya toos ay uga ciyaaraan maahan koob inta la qabto u dhamaanaya laakiin sanadka dhan xilliga talbiga xilliga iskuulaadku xiran yihiin in ay helaan ilmuhu kooxa macallimiintooda quraanka ay gacanta ku hayaan hadii la yiraahdo meelo badan ilaa hadda cidda isdiiwaan gelisay masaajidkana kamid ah iyo masaajidka Murumaki marka programadaas dhan waxa looga shaqeynaa laakiin waa in idinka la ka helo maamooyinka in laga helo weeyaan inay diyaar u yihiin inay mataqaana ka qayb qaataan inay suwaanbuu soo sameeyaan ay iibiyaan ay dhaan ilmahayga ha lagu taageero idinka la ka rabaa walow dadka meesha fadhiya u badan yihiin dad yar yar laakiin maamooyinka ha gaarsiiyaan يعني سبورتيga inagana la ka rabaa marka inaga hurdada ka kacno ayaan waxayna doonan karnaa gabdhaha xataa hadii la yiraahdo waxaan kala tashanaa ururka dhalinyarada Maxamed Yare gudoomiyaha uu yahay in ay helaan dabaal gabdhuhu inay sawiraan dharka dabaasha ugu macquulsan ay rabaan ana ballan qaaday inaan soo saarno
dharka dabaasha ay rabaan qaabku u noqonayo xataa haddii ay soo sawiraan anaa ballan qaaday inaan soo saarno dharkiio sidaasa oo wax yar kadib uu suuqa yimaado laakiin waa in innagana nala ka helo inaan mataqaanaa waxa aan rabno aan soo gudbin karno aad baa u mahadsantihiin brogramkani intaas noogu egay haddii la yidhaahdo haddii sheekh suguley wax ku darayaan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waxa uuna ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan oo ay markaasi dadkii ka soo qaybgalay iyo kuwii markaasi soo bandhigayeyba ay aad ugu faraxsanaayeen maxamed muuse universal t v waqooyiga yurub finland